الرحمن الرحيم waxaan rabaa inaan maanta halkan uga mahad celiyo in allaale iyo intii nagala qayb qaadatay oo igu horeeyaan shacabka allaha awood leh baan marka ugu horeyso aan leeyahay aan u mahad celinayaa oo shaqadii soo bilaabatay 7 bisha kuna dhamaatay maanta oo ah 10 bisha noogu dhameeyay si nabadgelyo ah intaas kadib waxaan mahad ballaaran u celinayaa shacabka reer Puntland dhamaantood waxaan mahad khaas ah u celinayaa shacabka reer Boosaaso oo xil weyn iska saaray soo dhaweyntii iyo marxabayntii wufuudii kala duwaneed ee heer caalam iyo heer Soomaaliya iyo heer Puntland intaba ahayd muddadii yareed ee xafladaha kala gedisan lagu qabanayay halkan oo ahayd furintaankii garoonka Boosaaso iyo xafladii sanad guuradii labaad ee doorashadii madaxweynaha Puntland waxaan kaloo mahad ballaaran u celinayaa saxaafadda oo si laxaad leh noogala qayb gashay dhinaca amniga haday tahay iyo dhinac kale haday tahay intaba waxaan qirayaa in shacabka reer Boosaaso ay bislaadeen inay wadaniyadooda ilaashadaan inay nabadgelyadooda ilaashadaan inay mashaariicdooda qiimaha badan ee bilowga uu yahay garoonkan hadda aan ka hadlayo inay ilaashadaan markastana arinta waa ku boorinayaa waxaan kaloo mahad ballaaran u celinayaa ciidamada qalabka sida dhamaantood oo ay ka mid yihiin BSF BMBF ciidanka daraawiishta iyo ciidanka booliiska oo aan anigu madaxda u ahay oo dhamaantood si isku xiran oo jeen ah uga qayb galay ilaalintii nabadgelyada ilaah baa nabadgelyo leh laakiin aad iyo aad si wanaagsan yani arinta uga soo dhalaalay ujeedadeedina waxay iga ahayd mahad celin inaan u mahadnaqo cid kasta oo amniga nala sugtay oo markasta ay ugu horeeyaan shacabka reer Puntland khaasatan shacabka Boosaaso